بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kansarku waa sababta labaad ee ugu weyn dhimashada dadka adduunka oo dhan. Sanadkii 2018 kansarka waxa uu dhintay qiyaas ahaan dad gaaraya 9.6 milyan oo qof sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO. kansarka sambabada, kansarka qanjirka prostate-ka ama loo yaqaan qanjirka ragga, kansarka mindhicirada ama malawadka, kansarka caloosha iyo kansarka beerka ayaa ahaa noocyada ugu badan ee kansarada ku dhaca ragga, halka kansarka naasaha, kansarka mindhicirada ama malawadka, kansarka sambabada, kansarka ku dhaca afka ilmo-galeenka iyo kansarka qanjirka thyroid-ka ee ku yaala dhuunta ay yihiin kuwa ugu badan ee dumarka ku dhaca. maadaama ay jiraan kansarro sidaas u badan oo ku dhaca ragga iyo dumarka, waxaa muhiim ah inaan fahanno guud ahaan waxa uu yahay kansarka iyo waxa aan samayn karno si aan uga nabad galno. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. waxaa laga yaabaa in aad dugsigaagii sare kusoo baratay waxa la yiraahdo qaybsanka unugyada cell division ama koritaanka unugyada cell growth. labadaba waxaa kontaroola genes ama hidde-sideyaal. haddaba kansarka waxaa sababa samaynta hidde-sideyaashaas isbedelay kuwaasoo kontaroola ama xakameeya koritaanka iyo qaybsanka unugyada. hidde-wadayaashaas isbedelay ayaa la yiraahdaa oncogenes ama unugyada kansarka sameeya. unugyadan ayaa si aan caadi ahayn uga tiro bato kuwa caadiga ah, iyagoo qayb kasta oo jirka ka mid ah ku sameynaya unugyo kansar ah. waxayna ku faafi karaan habdhiska wareegga dhiigga ama waxay ku abuurmi karaan qaab dhismeedka ku hareeraysan habdhiska wareegga dhiigga, taasoo in la daweeyo adkaan doonto. waxaa jira in ka badan 200 oo nooc oo kansar ah oo midkiiba leh arrimo halis ah oo kala duwan, astaamo lagu garto iyo daaweyn. kansarka badankood waxaa lagu magacaabaa xubinta ama meesha ay ka bilaabmaan. tusaale ahaan, kansarka sambabada wuxuu ka bilaabmaa sambabada, sidaas darteed ayaa loo siiyey magacaas oo ah halka uu ka bilaabmay. sidaas oo kale kansarka naasaha wuxuu ka bilaabmaa naasaha. haddii aan la daaweyn kansarka, waxa uu ku faafi karaa xubnaha u dhow meesha uu ka jiro kansarka. habdhiska difaaca jirkeena waxa uu leeyahay awood uu iskaga difaaco unugyada kansarka, balse nasiib xumo mararka qaar awoodda alla darteed waxaa jirkeena ku dhaco tiro aad u badan oo kansarro ah oo ka faa'iidaystay habdhiska difaaca jirkeena oo daciifay. balse waxaa jira tillaabooyin lagu yareynayo awoodda kansarka. haddaba waxaa muhiim ah inuu qof walba ogaado waxyaabaha halista ah ee keena kansarka. waxaana ka mid ah waxyaabahaas inay kusoo gaaraan shucaaca ka yimaada raajooyinka iyo walxaha kale ee shucaaca soo saara sida moobeelada iyo kombiyuutarka. sidoo kale kansarka waxaa sababa kiimikooyinka qaar sida kiimikooyinka la isku cadeeyo. sidoo kale waxaa sababa sigaar cabidda, cuntooyinka qaar sida hilibka la warshadeeyey, aalkolada iyo wixii la midka ah. waxaa kale uu kansarku ku imaan karaa dhaxal ahaan, oo ah in qof ka mid ah qoyskiina ama isirkiina dambe uu horay u qabay kansar. waxaa kaloo sababa kansarka fayrasyada qaar, tusaale ahaan leukemia oo ah kansarka dhiigga ku dhaca unugyada dhiigga sameeya oo ay ka mid yihiin dhuuxa lafaha. kansarka wuxuu ku dhici karaa qof walba, yar iyo weyn, maalqabeen iyo faqiir, ragga iyo dumarka iyo carruurta. haddaba waxaa ogaataa kansarka inuusan lahayn dad gaar ah, waana mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada adduunka oo dhan. qiyaas ahaan 30 ilaa 50% kansarada waa laga hortagi karaa. haddaba si aad uga hortagto, ka fogow waxyaabaha halista ah ee keeni kara kansarka. iska ilaali isticmaalka tubaakada oo ay ku jiraan sigaarka iyo tubaakada aan qiiqa lahayn. tubaakada waxaa ku jira maadooyin badan oo keena kansarka. cunno caafimaad qabta oo leh miro iyo qudrad fara badan. samee jimicsi joogto ah. iska ilaali galmada xaaraanta ah. iska talaali fayrasyada inta badan faafa. iska ilaali shucacyada kaaga imaan kara goobaha shaqada, ama iska yaree shucacyada baaritaanada caafimaadka sida raajooyinka. iska ilaali wasakheynta hawada magaalooyinka iyo qiiqa gudaha ee ka yimaada isticmaalka guryaha iyo warshadaha. hel daryeel caafimaad oo joogto ah. infekshanada daba dheeraada qaarkood sidoo kale waxay sababaan halista kansarka. dadka ku nool wadamada dhaqaalahoodu hooseeya iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa ugu badan inuu ku dhaco kansarka, iyagoo ugu wacan tahay cudurrada joogtada ah. haddii aad isku aragto calaamadaha qaar oo muujinaya kansarka ama aad iskaga shakiso, waxaa wanaagsan inaad goor hore tagto goob caafimaad oo aad iska baarto, isla markaasna aad iska daweyso. haddii aadan sidaas samaynin, waxaa laga yaabaa in uu kugu raago oo aad ka bogsoon weyso ilaa aad u dhimato ugu dambeyntii. ilaahay hanaga hayo dhammaanteen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.